مدن رئيس الوزراء dadka idin dhaliila xukuumadda dhaliisha u haya waxay leeyihiin waxay idinku eedeynayaan adag iyo inaadnaan mucaaradka fursad badan siinin maxaa uga jawaabaysaa arrintaas horta kow waan soo dhaweynayaa qof walba Soomaaliyeed oo na dhaliilaysa haddii aan la dhaliilin ma wanaagsanaanayno haddii aan la dhaliilin shaqadeenu ma ka sii wanaagsanaanayso meesha hadda aan joogno in la tilmaamo in la dhaliilo in la toosiyo aad baan ogolnahay dhaliishu laakiin waa inay ahaataa mid ah waxaan rabnaa dalka inaan sii hagaajino dhaliishu ma aha inay ahaato mid ah dan shakhsi ama qof shakhsi ah oo dan gooni ku raadsanaya inuu dhaliilo dawlad ama nidaam Soomaaliyeed taasi waa taas inaan adagnahay waa dhab waxaan ku adagnahay shuruucda wadanka ilaalinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dib u yagleelida dawladnimada waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad hami iyo qable maalintii madaxweynuhu uu shaqada bilaabay iyo maantay waa kala labo sida wadaninimada ummadda Soomaaliyeed looga hadlo maanta waa lagu yaani waxa ay maraysaa in dadka Soomaaliyeed ay siyaasiyiintu maanta ay ka wada hadlaan shacabka sidii loogu dhawaan lahaa in shacabka Soomaaliyeed in loo soo dhawaado ay tahay falsafad cusub oo siyaasiyiinta oo dhan maanta ay ka wada hadlaan oo ah siyaasad cusub oo lagu tartamo waxaan aaminsanahay inay dhalisay shaqada aan wadanka ka qabanay sababtoo ah aniga iyo inta ila shaqeysay ayaa aaminsan awoodda wadanka in loo soo celiyo shacabka Soomaaliyeed iyagu inay noqdaan mustaqbalka cidii go'aan ka gaari lahayd yaa u qalma dalkiina inuu hogaamiyo Rizal waxa jira wax dad badan ay ku tilmaamayaan ama dadka qaar ay ku tilmaamayaan xiisad siyaasadeed ama wadanka si guud uga jirta hadalhayn la xiriirta adinka uun xukuumadda iyo habka ay arrimaha qaar oo dhil gareynayso laga hadlaayo marka xasarada noocaas ama hadalhayn badan oo noocaas ay jirtana badan xukuumaddu waxay ka fikiraan inay xal raadiyaan xal noocee ah amaankaaga ku jira oo adii lahayd waa u wajahina arrimaha noocan ma yafiiri in xal mar walba la helo waa muhiim laakiin dadka Soomaaliyeed hore waa uu sheegay haddana waxaan rabaa inaan ugu soo celiyo oo aan iraahdo annagu wadankan waxaan ka rabnaa isbedel dhab ah isbedel wax ka bedela amniga dhaqaalaha horumarka siyaasadda wadanka annagu waxaan rabnaa dawlad Soomaaliyeed oo dadkeedu ay leeyihiin oo xoog leh isbedelku marka waa dhib isbedelku sidiisaba waa xanuun isbedelku waa meel cusub oo aad u guuraysid oo aanad ogeyn laakiin hore ayaan ummadda Soomaaliyeed ula wadaagnay in meesha hadda aan joognana ay tahay meel aan ummadda Soomaaliyeed u qalmin meeshii aan ka nimidna ay weli ka sii liidato meesha hadda aan joogno in hal dariiq kaliya noo furaya dariiqaas wuxuu yahay dalka in laga hirgeliyo isbedel dhab ah si loo hirgeliyo isbedelkaas dhabta ah waxaa lala kulmayaa caqabado waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed anagu waxaan wadanka joognaa in ka yar sanadkii inta ka yareed waxaa muuqata rajo ah in qof walba Soomaaliyeed noloshiisa ay wanaagsanaan doonto mustaqbalka sanadkii inta ka yar oo aan wadanka joognay qof walba Soomaaliyeed mushaarkiisa uu qaatay dhaqaalaha wadanku annagoo bixinay mushaar walba ayaa hadda 20 milyan iyo ka badan ay u taalaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed akoonkeeda ay ku jirtaa oo jannaayana qof ka walwali doona ma jiro hadii Ilaahay raado inuu mushaarkiisa qaato annagoo joogna sanad ka yar ayaa waxa leeyahay dunidu leedahay waxaan idin kala shaqeynaynaa sida aan dhaqaalaha u kobcin lahayn annagoo joogna sanad ka yar ayaan 200 milyan la saxanay dawladda Qatar annagoo joogna sanad ka yaraan 300 milyan la saxanay dawladda Mareykanka annagoo joogna sanad ka yar ayaa adduunyada European Unionku nagu soo wareejiyeen in contract walba annagu aan geli karno oo aan iyagu go'aan oo gaari karin annagoo joogna sanad ka yar ayay bilaabeen inay lacag toos ah akoonkeena ku soo shubaan annagoo joogna sanad ka yar ayaan waxaan ka qabanay amniga iyo militariga iyo booliska sida adigu hadda ka hadlaysay annagoo joogna sanad ka yar ayaan soo deynay maxaabiista aad sheegaysay annagoo joogna sanad ka yar ayaan soo celinay hawadii Soomaaliya
annagoo joogna sanad ka yar ayaan gurbidnay shuruucdii ugu badneed oo wakhtiga ugu kooban lagu gudbiyo qof walba oo Soomaaliyeed oo rabo marka indhihiisu inay wax qabtaan wuu kala garanayaa dariiqa saxda ah iyo dariiqa khaladka